السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qaybteennii hore waxay noogu joogtay koox yar oo Tataar ah oo halaagay magaalooyin badan oo muslimiin ah. Intii waxaan oo dhan sameynayeen ay ciidamada muslimiintu ahaayeen qaar iyagu isku mashquulsan oo isla dagaalamaya. kooxdan yar aakhirkii waxay aadeen halkii saldhigooda ahaa iyagoo bad qaba. qaybteennan maanta wuxuu qoraal ka bilaabayaa muslimiintu markay arkaan Tataarka waxay Tataarku la noqonayeen libaaxyo aan la loodin karin, halka markay indhaha Tataarka lagu eego ay muslimiintu noqonayeen bisad oo kale. markaas ayaa haybadii Tataar kor u kacday, haybadii muslimiintuna hoos u dhacday. sababtu waa muslimiinta oo iyagu isku mashquulay, markaas ay kala garan waayeen cadowgooda iyo saaxiibkooda. iimaankooda ayaa yaraaday, adduunyadii ayaa la weynaatay, dhaqankooda ayaa xumaaday. midhihii ka dhashay dhaqan xumadaasna waynu aragnaa. waxa uu yidhi taariikhyahanka Ibnu Kathiir, sannadaha waxaa yaraaday roobabkii dhulka heli jiray, markaas ayaa hadba wax yari meel ka da'an oo aan ahayn waqtigii loo bartay. dhibaatada ay taasi keentayna waxay ahayd dadkii oo kala garan waayay xilli ay wax beertaan. intaas kadib waxaa soo baxa geedo yaryar, geedahaas yaryar laftoodana waxaa lagu sallidaa ayax. kadib dhulka ayaa isugu baxay gabaahiir, maciishada ayaa cirkas ku shareertay. waxa dadkii lagu sallida ayax, abaaro iyo midhihii oo la waayey, waxaana la gartay in ay tahay imtixaan xagga Rabbi ka yimi. sidoo kale dhaqaalihi ayaa dhulka galay. waxaa bilaabmay sanadkii 622 hijriga. sanadkan waxaa khafiifay weeraradii ay Tataarku ku hayeen galbeedka dowladdii Khawaarsim. waxay ku jeesteen Tataarkii in ay dowladooda isku xidhaan iyo sidii ay u xasilin lahaayeen dhulkan ay qabsadeen oo ahaa bariga Khawaarsim iyo gobollada webiga Sayxuun iyo Jeexuun, waqooyiga Afghanistan iyo bariga Iiraan. laakiin sanadkan waxaa dhacay wax cusub kadib markii uu saaxadda ku soo noqday Jalaaludiin Maxamed Khawaarsim Shaah. waa kii 5 sano ka hor u cararay Hindiya. taariikhdu markay ahayd 617 hijriga. waxaa ku adkaatay inuu noloshiisa ku dhammaystay Hindiya, sababtoo ah markii horeba lama lahayn boqorada Hindiya xiriir wanaagsan. kadib waxa uu ogaaday in Tataarku ka tageen Faris. Genghis Khanna uu waddankiisa ku noqday si uu u soo xalliyo arrimo siyaasadeed oo halkaas ka jiray. ciidamadii meesha joogay inuu kaga tegay hogaamiye kale, iyo inuu walaalkiis Qiyaasudiin uu haysto Faris badankeeda oo ay ku dagaalameen Saacadudiin Dakla. kadibna ay ku heshiin ay waddanka kala qaybsadaan oo barhkii badnaa uu qaatay Qiyaasudiin. heshiiskaasna waxa uu dhacay sanadkii 622 hijriga, sidii aynu halka hore kusoo sheegnay. waxa uu arkay Jalaaludiin in halkaas saanis uga bannaan oo uu ku soo ceshado maamulkiisii uu lumiyey ee Khawaarsim. laakiin aragtidaas si xeel dheer uma eegin, mana baadhin xanuunadii dadka qalbigooda ku habsaday wakhtigaas. ma uu garan Jalaaludiin in ummaddan is wada haystay ee imtixaaman ee gobolba uu la dagaalamayo gobol kale uu isu soo dhoweeyo oo walaaleeyo. laakiin mashaakilkii ayuu qayb ka noqday, waa mashaakil cusub oo u soo kordhay ummaddii islaamka. muxuu sameeyey Jalaaludiin? waxa uu ka soo tallaabay webiga Sindi. waxa uu soo galay gobolka Karmaan oo ah koonfurta Bakistaan. waxa uu soo dhaafay koonfurta Faris, kadibna waxa uu bilaabay inuu urursado ciidamo. waxa uu tegay Saacadudiin si ay ugu midoobaan la dagaalanka walaalkiis. waxa uu bilaabay Jalaaludiin inuu weeraro kala bixiyo koonfurta iyo waqooyiga Faris, isagoo la dagaalamaya walaalkiis Qiyaasudiin, ilaa uu gaadhay galbeedka Iiraan una dhowaaday khilaafada Cabbaasiyiinta. xiriir ka dhaxeeya khilaafada iyo Khawaarsim sidaynu hore u soo sheegnay ma ahayn mid wanaagsan. awood ayuu isbiday Jalaaludiin, tamardarrana waxa uu ka dareemay khilaafada Cabbaasiyiinta. dagaal ayuuba ogeysiiyey khilaafadii Cabbaasiyiinta. arrinkani waxa uu dhacayaa xilli Tataarkii soo kulaalayaan bariga Iiraan. la yaab ma leh muslimiinta oo waynagii nidhi waxa ku dhacay indhala-aan siyaasadeed. Jalaaludiin ciidankiisa ayuu soo geliyey Basra. muddo 2 bilood ah ayuu godoomin ku hayay. uu iskaga tegay wuxuuna u dhaqaaqay waqooyiga si uu ugu dhowaado Baqdaad oo ah caasimadda khilaafada. waxaa cabsi gashay khaliifkii Naasir lidiinillaah. ciidamadiisa ayuu heegan geliyey si ay iskaga celiyaan Jalaaludiin. laakiin intaasuu isku halleen waayey. waxa aanu sameeyey arrin aad u foolxun oo lala yaabo. waxa uu gargaar weydiistay Tataarka si ay ula jabiyaan Jalaaludiin. Tataar ayuu u tegay isagoo garanaya taariikhdooda iyo dagaalada ay muslimiinta la galeen iyo siday muslimiinta u halaageen. xitaa haddii uu Jalaaludiin gardarro kasta ugu yimaado, may ahayn inuu u yeedho Tataar. waana hubaal hadday u yimaadaan oo ay Jalaaludiin jabiyaan, tallaabada labaad in ay noqonayso khilaafada oo ay kusoo kala jeesanayaan, dabkana saarayaan. laakiin nin doonaya kursiisi uu maalmo ugu sii fadhiyo waxaas iyo wax ka daran midna uma muuqanayo. xalka muslimiintu kuma xasilay gacan shisheeye oo gaalo ah in loo yeedho, uuba kaga sii daraa gacanta shisheeyaha. muslimiintuna iyaga ayaa garanaya xanuunka haya iyo nooca uu yahay iyo dawadiisaba. waxa uu la mid yahay Naasir lidiinillaah, sida nin tuug yari gurigiisa u soo dhacay oo inta uu cararay tuugtii magaalada oo dhan u yeedhay isagoo uga dacwoonayay tuuggan yar ee u soo dhacay, oo tuugtii waaweyneedna ay gurigii oo dhan xadeen. weliba gurigiisa oo keliya kuma ekaanine guryihii deriskala ahaana ay ku dareen. waxaa taas la mid ah kaalmada khaliifku weydiistay Tataarka.
kan kasii daran Jalaaludiin oo la garanayay sida uu u kala qoqobay una kala daadiyay ciidadan ugaga dhaqaaqay shacabkiisii iminkana waa weyn sida uu u dumin lahaa khilaafada islaamka. laakiin Tataarku waxay mashquul ku ahaayeen maamulka dhulalkii aadka u ballaarnaa ay qabsadeen, sidaa awgeed iyaga iyo Jalaaludiin wax dagaal ah ma dhex marin. jaaniskaas ayuu Jalaaludiinna ka faa'iidaystay, wuxuuna qabsaday dhammaan gobolladii ku xirnaa Baqdaad. kadib waxa uu qabsaday waqooyiga Ciraaq iyo waqooyiga Faris. waxa uu bilaabay inuu galo Azerbaijan iyo wixii ku hareeraysnaa ee ahaa magaalooyinka muslimka ah. waxay ahaayeen dagaaladiisu dagaalo aad u fasaad badan oo dhiig badan ku daatay, iyadoo oo wax meesha isku dilayaana ay yihiin dad muslimiin ah. waxyaabaha uu geystay waxaa ka mid ah dil, adoonsi, burburin, dhac iyo boob aan loo kala aaba yeelayn. waxaadba moodaa inuu ka bartay Tataarka sida ay wax u cadaabaan, halkii ay ahayd inuu u naxariisto ummadihii uu qabsaday iyo sidii uu ilowsin lahaa dhibtii ay gaadhsiiyeen Tataarku ee ahayd dil, kufsi, dhac, jirdil iyo sidoo kale gowracyadii soconayay sanadada badan. intaa kadib dhulballaarsigiis waxa uu ku qabsay mandaqada Georgia ee Nasaarada ahayd, kadib markii uu si fooxin ugu jabiyey dagaal. walaalkiis Qiyaasudiin waxa uu la galay heshiis mudaysan, ciidamadiina way isku dareen, laakiin labadoodu waxay ku kala jireen digtooni uu midba kan kale iska eegayo. maamulkii Jalaaludiin waxa uu gaadhay koonfurta Faris ilaa waqooyi galbeed badda Qaswiin. inkastoo ay tahay dhul aad u ballaaran, haddana dhibaatooyinka dhex yaallay ayaa badnaa. intaas waxaa sii dheer inuu quluubtii dadkan iska horkeenay oo uu cadaawad ka dhex abuuray iyo siyaasad xadhig maran ah oo uu ka dhaxlay kii dhalay ee Maxamed Khawaarism Shaah oo aan hore uga soo sheekaynay. dhammaadkii sanadkan 622 hijriga waxaa geeriyooday khaliifkii daalinka ahaa Naasir Lidiinillah kadib markii uu xukumayay Ciraaq 47 sano oo xiriir ah. aad ayuu u foolxuntay ka sheekaynta taariikhdiisu. waxa uu khariibay Ciraaq, waxa uu dulmiyey dadkeedii, xoolaheedii iyo hantideedii ayuu iska dhacay. waxaasoo dhan waxa u dheeraad dembi aad iyo aad u weynaa oo uu ka galay muslimiinta, kastoo la dhinac dhigana ay yaraanayaan. waa gargaarkii uu Tataarka weydiistay iyo inuu ummaddii islaamka ayd ugu yeedhi lahaa cadowgii marin lahaa. waxaa bilaabmay sanadkii 623 hijriga. waxaa khilaafadii la wareegay Naasir Lidiinillah. aad iyo aad ayuu uga duwanaa aabihiis. waxa uu ahaa nin saalix oo Ilaahay ka baqa, samatalis ah, cadaaladii iyo wanaagga ayuu soo celiyey, inkastoo ay qadiyadu ahayd dal dhan oo xumaaday islamarkaana muddo gaaban aan lagu wanaajin karin. haddana wixii uu awooday kama hakran uu qabtay. taariikhyahanka casriga noolaa wuxuu leeyahay haddii la yidhaahdo khaliifkan oo kale khilaafada ma qabanin kadib Cumar bin Cabdilcasiis, run ayuu sheegi lahaa. cashuurii dadka lagu amray ayuu joojiyey, dadkii xaqooda la dulmiyey ayuu soo celiyey, kuwii dulmi dartii jeelasha loogu guray ayuu ooda ka qaaday. waxa uu waxsiin jiray fuqarada. yaab ayuu lahaa marka loo eego casriga uu noolaa iyo sida fasaadku dunida muslimka u haystay. waxa uu leeyahay taariikhyahankii waqtigaa noolaa Ibnu Kathiir, waxa aan ka baqayaa in ifka loo dayn waayo sababtoo ah casrigan waalan iyo dadka sidan u wanaagsan isma laha. ilaa heerkaas ayuu ummaddan islaamka ay xumaatay. wuu rumoobay hadalkii Ibnu Kathiir, degdeg ayuuna u geeriyooday. xukunkaba waxa uu hayay 9 bilood iyo maalmo keliya. waqtigaas yar ee uu xukunka hayay waxaa hoos u dhacay maciishadii, dhaqaalihii Ciraaq ayaa wanaagsanaaday, wax walbana way isbedeleen. geeridiisa kadib waxaa xukunkii la wareegay nin la yidhaahdo Al-Muntasir Billah. waxa uu xukunka hayay ilaa 640 hijriga, muddo aan ka yareen 17 sano. xilligan ay xaaladda noocaas ay jirtay, Jalaaludiin uu sii waday dagaaladii uu mandaqada ka waday. lama dagaalamayo Tataar, laakiin waa muslimiin. waxa uu qabsay magaalooyin iyo gobollo, waxaana ka mid ah waxyaabihii yaabka lahaa markii uu goodoomiyey magaalada Khalaad ama Akhlaad. waa magaalo muslim ah oo imika ku taalla bariga Turkiga. dad badan ayuu ku laayay, wax kasta oo lahaydna gacanta ayuu ku dhigay isagii ciidankiisii. xitaa waxay faraxumeeyeen dumarkii muslimaadka ahaa. dhab ahaantii wax lagu sheego la garan maayo akhlaaq xumada heerkan gaadhay, siyaasad xumadan iyo xikmad darradan dhaqanka iyo diintaba ka madhan. haddaan hadalkan loo haynin tixraacyo badan oo dadkii waqtigaa noolaa ay qoreen, caqliga may gasheen. intaa kadib waxaa dhacay arrin muhiim u ah muslimiinta sanadkii 624 hijriga. arrinkaasna waa geeridii Genghis Khan. waa hogaamiyihii dambiilaha ahaa, dhiigii cabka ee Tataarka hogaamin jiray. cimrigiisaan ugu sheegay 72 jir. waxaa ka buuxda oo la dhintay dil, dhac, boob, kharbudaad, ciribtir iyo meesha uu soo maraba inuu cagta mariyo. intii uu xukunka hayay waxa uu dhisay ciidan aad u awood badan. sidoo kale intii uu xukunka hayay waxa la qabsaday laga bilaabo bariga Kuuriya ilaa galbeedka Faris. waxa lagu qabsaday dhulalkan dhiig, dad iyo maalkoodii, inta ugu badanna yihiin muslimiin. laakiin waxa canaan oo dhan iska leh kuwa heerka daciifnimada ka gaadhay, isla markaana ay u suurto gashay faasidkani inuu dhulkooda qabsado sidoo doonana uu ka yeelo. geerida Genghis Khan arrimihii oo dhan ayaa isku dhex daatay. Tataarkina waxa ay ku dadaaleen in ay wixii dadka muslimiinta laga qaaday hanti iyo dhulba ay adkaystaan. waqtigaas oo uu Jalaaludiin ku jiro dhul ballaarsigiisii ku wajahnaa gobollada galbeed ee Iiraan
iyo galbeedka badda Qaswiin. waqtigii 624 hijriga ilaa 627 hijriga waa waqtigii deganaanshaha iyo nasashada, waana sababta geerida Genghis Khan. muslimiintu xaalad noocmaha ayay ku jireen waqtigaas. waxba iskama bedelin, sidoodii horena way ahaayeen, way iscunayeen oo isdilayeen, shaqaaqooyin badanna way dhex yaaleen.